بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي أمادس كله نسوى فجيي حفلة لغو غالسان أو احتفال كالشد النبي صلى الله عليه وسلم iyadoo nabiga la ammaanayo leesaga sheekayhayo taariikhdiisii iyo noloshiisii iyo waxqabadkiisii. ilaahay naga mid yeelo jamaacada la soo kulanta oo xawdkiisa waraabta oo u shafeeyo. Allah naga mid yeelo. intaas kidii mowduuca laygu qoray oo ka sheekaynta siirada nabiga qayb kamida sallallahu alayhi wa alihi wasallam waa mowduuc aad u weyn. waa mowduuc muhiimadiisa leh. waa mowduuc u baahan qof aqoon u leh oo u dhiganta inay ka sheekayso. anugu waxaan ka mid ahay dadka ugu baahida badan leh inooga sheekeeyo siirada nabiga. anaa ka warqaba xaaladeeda say tahay. hase yeeshee haddaan idhaahdo walhaan ka idhaahaa ma ogi. dadkaan yaqaaneen waxay isdhihi karaan waxbartar waa sheegi karyaahe hagaraa ku jirta. marka insha allahu tacaala waxaan unbowsadayaan wax ka sheegi doona wax alla i waafajiyo. siirada nabiga haddii laga sheekay tago waa min wilaadatihi ilaa wafaatihi, waana 63 sano. marka ma ahan wax hal majlis lagu koobi kara ma ahan, amba qof aqoontiis yarta uu ka hadli kara ma ahan, laakiin waa kelimooyin ka mida in wax laga yidhaaho. insha allahu tacaala waxaan ka bilaaban doonaa qaybta ugu horeyso ah nabiga dhalashadiisii iyo barbaaritaankiisi. nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam dhalashadiisa wuxuu ku dhashay bishicbi bani haashim fii maka, magaalada mako xaafad ka mida oo la yidhaahdo shicbi bani haashim oo ku dhashay. xilligaas ou dhalahaayo waa bish hadda aan ku jirno oo leh rabiicul awal qaybaheeda hore. inay tubay laba ahayd maalintaasu iyo inay maalin kale aheeday aqwaalaa jirto, laakiin sida loo badan yahay 12kay ahayd. nabigu waxa uu dhashay subax ithnayn ah oo ku soo biiray koonkan. hadda uu ku soo biiran ilaahay wuxuu daahiriyay calaamaad aan hor loo arki jirin biwujuudi lmustafa sala allahu calayhi wasalam. nabiga soo biiritaan koonka uu ku soo biiray isla markiiba isbedelaa ka yimiday. sanadkaas marka uu dhashay nabigu waxa waaye sanad mashhuur oo carabtu aad u taqaano oo carabta taariikh u leh. sanadkaas waxaa loo yaqiinay caamul fiil, sanadkii maroodiga. carabtu xilligaas taariikh qoran ay ku xisaabtantay oo marjac ka dhigataa ma qabin, li'annahu taariikhan islaamka oo hijrigaahu wuxuu bilowday nabiga dhalashadiisii, bicadiisii, hijradiisii ka bacdi oo bilowday. marka carabtu waxay wax ku taariijin jireen dhacdooyinka waaweyn oo la xasuusto, sida soomaalidu ay sidaasoo kale u tahay. abaarti heblaheeday, udurkii waqti hebelahay, sidaasoo kaleeta ay taariikh uga dhigtaan. marka sanadkaas waxaa loo yaqiinay caamul fiil. caamul fiil sababta loogu baxsha waxay tahay waa sanadii nin la yidhaahdo abraha oo xabashiya oo malikul xabasha naa'ib uga ahay ardul yaman oo kacbada ku duulay. asoo markaas doona inuu kacbada baabi'iyo
meeshay ku taalla uu ka tirtiro ilaahayna hagartiisii dib ugu soo celsho arrintaasu uma suurto gelin waxaa marka arrintaas sabab u aheeday marka uu arkay abraha in kacbada shariifada loo xajihaayo carabtu ay u xajihayso guriyow dhisay oo kaniisad ka dhisa weyn ardul yaman sanca wuxuu yidhi marka halkaasaa loo xajihaa meeshii laga aadi lahay kacbada waxaa loo xajiha u dhahay sanca gurigaas aan ka dhisay oo weyn marka ciduna aadi mayso kacbadaba sidaas markuu yeelay nin kinaaniya arrintaas ogaaday soo baxay gurigii soo galay goor habiina kuna saxarooday saxaradina derbida ku najaasiiyey kana dheelmaday abraha markuu ogaada marka wixii dhacay aad iyo aad ugu carooday ciidamo u diyaarsaday ciidamadaas gaadiid ka mida waxaa ku jiray maruudiyaal wuxuu go'aansadaa marka inuu kacbada uu tirtiro u baabi'iyo iyada dhanba meesha uu ka tirtiro waa dhaqaajiyey ciidanku waa ilaa 60,000 oo asgari waay oo daabadahooda wata maruudiga uu ka mid yahay waxay marka kuurka u galeen mako waa dhowaadeen meel la yidhaahdo waadi almuxasar oo u dhaxeeya musdalifa iyo mina u dhaxeeya markuu maraayo ciidankii ilaahay waxuu xabisay maruudigii halkaasuu tugsada marka maruudigii wax dhaqaajiya la waayey haddii dhinaca kacbada loo dhaqaajiyo ma nuuxsahaayo haddiise qayb kaleeto loo dhaqaajiyo waa socaha iyadoo saas xaalkoodu yahay ilaahay wuxuu soo diray junuud asigu uu og yahay meeshuu ka soo diray oo ah shimbirtu markii la fiiriyo ananka agtayna xayawaanaadka waxay ka mid tahay jiljilcan laakiin haddii alla adeegsado waxay naqahaysaa ciidamo xoog leh shimbirtaasu waxay wadataa marka dhagxaan kiiba 3 dhagaxuu sitaa dhagax wuxuu ku sitaa gafuurka labada lugood dhagxaantaasu waa dhagxaan yaryar oo sida ganleyda murxeedoo kaleeta dhagaxaasu qofku ku dhaca marka waa googoyaha ciidanka halkaasaa lagu baabi'iyey abraha oo watay dibay u naqdeen marka iyagoo isbaabaashiyey laftooda oo isjejabshay halkaasna ku halaagsamay abrahana alla wuxuu ku salliday cudur oo go'aayo ilaa sanac uu gaaro asoo shimbir oo kaleeta asna halkaasuu ku dhintay allahu rabbul caalamiin arrintaas wuxuu uga qasooday suuratul fiil bismillaahi الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول xilligaas marka carabu ciidan diyaarsan ma haysan ay cadaawada isaga dhiciso markay ogaadeen in abraha ku soo wajahan yahay kacbada waa ka baxeen buurahay fuuleen markii alla uu jabsha marka ciidamadii abraha oo maka ay ammaan naqatay soo degeen halkaasay degeen waqcadaas marka waqcatul fiila waxay dhacdaa layidhaha bisha muxaram wilaadada nabiga iyo dhacdadaasna waxaa u dhaxeeya 50 maalmood ilaa 55 maalmood bisha layidhaha zako muxaram ay dhacdadaasu nabiguna wuxuu dhashay qaybaha ugu horeeya nuska hore oo bisha la yidhaahdo rabiicul awal nabiga hooyadiis markay dhashay
aabihiis ma noolayn yatiim uu ahay aabbaha wuxuu dhintay nabigu ku jira hooyada uurkeeda haddii marka ifka oo yimid nabigu sallallahu alayhi wasallam sida ay warihayso hooyadiis waxay leedahay falamma waladtuhu kharaja min farji nuurun allaat lahu qusuur shaam markii aan dhalay oo nabigu ifka u soo baxay waxaa ka soo baxay cawradayda nuur sarihii shaam kuil ay iftiimeen waxaad arkaysaa marka iftiinka awoodda uu leeyahay mako iyo shaam dhul isu dhow ma ahan haddana ifkaas mahaas ka baxay mako wuxuu iftiimiyey ardu shaam gurihii ku dhisnaay aamina bintu wahbin markay banaanku aragtay wiilkii uu dhashay waxay u dirtay adeeg abkowgiis cabdulmuطalib baa yimiday nabigu uu xambaaray sala allahu calayhi wasalam aad iyo aad ugu farxay maadaama wiilkiisa cabdulaahi yahay oo adduunka ka tegey ilmo kaleetana uusan ka tegin wiilkii dadou reebay cabdulmuطalib nabiga waa xambaaray wuxuu la galay kacbada gudaheeda ilaahay u mahad celiyey hadduu alla u mahad celiyey ka bacdi wuxuu sameeyey marka magacaan ah muxamed oo nugaas la isticmaali jirin u baxshay وهذا الاسم لم يكن معروفا في العرب magaca muxamed xilligaas carabtu ma baxsan jirin wakhatanahu yowma saabicihi maalinta toddobaadna waa guday kamaa kaanat caadatu lcarab sidaasaa dhaqankuba ahaa jira carabta in wiilka khatni lagu sameeyo maalinta ka toddobaad wilaadadiisa wuxuu marka sameeyey nabiga abkugiis cabdulmuطalib sida carabtuba samey jirtay wuxuu u doonay qof haweenaho naaska u deeya oo barbaariya fi lbaadiyati waxaa qofkaas ka hormara marka oo nabiga nuujiyey laba qofood ah hooyadiis aamina iyo maalmo kadib oo huwaybatu alaslamiya iduna ay nuujisay mawlaatun liabilhabin abulahab nabiga adeerkiisa u ahay addoon ou lahay la dhihi jira huwayba aa nabiga naaska u daysay addoontaasna abulahab waa xureeyey markay ugu bishaaraysay wilaadada nabiga sala allahu calayh wasalam asoon markaas ula jeedin nabinimo aan ula jeedin laakiin ula jeeda walaalkiis oo wiil ka tegey faraxa ugu farxay darta arrintaasuu u xuriyay addoontaas maalintaas marka itnaynta ah oo nabigu uu dhashay oo ugu farxay walaalkiis wiil u dhashay oo addoonta xureeyey itnayn walba waxaa la yidhaha marka cadaabka laga fududeeyaa itnayn waliba cadaabka laga fududeeyaa waxa uu nasiib lahalaya marka hadduu ugu farxa nabinimo oo rumeeyo laakiin nasiibkaas ma yeelan ee cadaada kan ugu cadowsan uu ahay gaalada nabiga dhibaysa ninka ugu horreeya isagu u ahay oo dhinaca dambe khatimkaa ka xumaaday huwayba waxay nabiga hortiis nuujisay nabiga adeerkiis xamza ibn cabdilmuطalib marka xamza dhinaca nasabkana adeeru nabiga u yahay xagga radaacana walaalu u yahay kadibna waxay nuujisay inuu yidhi abaa salama asna xagga radaac walaal uga yahay marka nabigu walaalo waa qabyaa xagga radaaca nuugmada laakiin walaala xagga nasabka oo la dhashay ma joogin sida dhaqanka carabtuba ahay
cabdulmudalib nebigu wuxuu u doonay qof nuujisa naaska u daysa. xilligaas waxaa jira marka haweenka baadiyaha degan inay safar soo aadaan, ay maka yimaadaan, ilmo ay ka xambaartaan, ujrana ay ku qaataan, ay baadiyaha ku soo xallaaneeyaan. xilligaas marka arrintaasu dhacayso qabiilada reer bani sacad dhulkooda waxaa ka jira abaar diirataa, geeduhu caddaadeen, xoolihiina ay baaba'een. gabar layidhaha xaliimatu bintu abi du'ayb oo reer bani sacada iyo adowgeedii alxaaris ibnu cabdilcusay safaray ka mid yihiina maka u safreen, iyagoo markaas raadihaya ilmo ay nuujiyaan. waxay marka uga qayb galeen safarta dameer dhidig oo iska weytaalho socod yar iyo hal qawaara iyaduna oon tabar lahayn. jidkaa looga tega marka safartiyaa ka dhaqday, hortoodaa la qaatay marka ilmihii ujrada lagu qaadahayay. nabigana maadaama yatiiman can abiihi uu yahay aabbihiis uusan noolaynin, gabar kastoo loo bandhigay waa diiday. waxay tidhi maadaama aabbihiis uusan noolayn oona macruufka helaynin, inaan qaaddan iguma jirto. xaliima iyo odogoodu markay tegeen waxaa meesh ku baaqiya wiilka nabiga ah sala allahu calayh wasalam oo keliya. xaliima waxay tidhi marka waxaa necbeesro ila xumaaday inaan ka naqdo meeshaas anoo gacan miran. waxay la tashatay marka wadaadkeedii ahay xaaris uu kunyay jiray abukabsha. waxay tihi waxaan rabaa inaan iska qaato wiilkan maadaama canug kale aanan haysan, inaan iska qaadho asigaasaan rabaa. xaaris arrintaas waa ku taageeray, waana kula qabaa howri. xaliim marka waxay tihi waa soo xambaardhay, dhabtaan saaray. xilligaasna wiil kaleeto aa naaskeeda ku irmaan, laakiin ha ku irmaanaadee caanuu ka nuuga ma qabto. waxay leedahay marka habeenkii hurda ma aqaanin, canugaas ooyintiisa darteed naaskayga walaxaan ku shubiya kama heli karin, hasha noo joogtana caan laga dhiiji ma haynin. markii dhabta ay saartay waxay tihi waxaa darray isla markii naasihaygii hal naasou ka dhergay nabigu sala allahu calayh wasalam, wiili kaleetana waxa uu ka dhergay naasi kaleeto. halkaasay ku hurdeen marka. anunkuna habeenkaasaan hurdnay tiri, habeenkaas aan hurdnay. abukabsh hashii u kacay, hashi waaba godlantahaba. hashii dhibacda caana laga waayey waaba godlantahaba. caanuu ka lisay tiri, caanihii marka uu ka lisay waa nugu aadeen, waana ka dheregnay. fabitnaa bikhayri laylatin, habeenka ugu khayr badan aan habeenkaas hoynay tiri. subaxdii markii safarti la aaday oo loo naqahay fii ardi bani sacad bini bakar, degaanadii shala laga yimid, dameertii shala soco weyday, safarti waa dhaafta. safarti shalka soo tagtay xilligan waa dhaafta. waxay gaartay tiri ilaa haweenka yidhaahiin yaa binta abi du'ayb, gabarta abi du'aybay noo dhimri socodka noo tartiibi. halkaasaa lagu guryo naqday. waxay tihi markaan tagnay dhulkayni, xoolahayni tabcaanka ahay waxay soo hoyaadaan iyagoo dararay, kilidu ka korraysoo dhergan. guriga waxa uu noqday guri barwaaqo. maxaa u sababa? qofkay soo qaadeenaa mubaaraga, nabiga barakadiisa
waxay isku bedeleen idaha diriskooda lama qabaan caanahoodu caan uma dhiiqaan waxay yidhahdeen muga reer beri aqooladan la yidhaahdo xalimad sacdiya ee ninkeeda meesha erigu u soo daaqo eriga noo soo daajiya erigu wuxuu soo daaqo waa barako ee roob ma di'in weli marka guriga nabiga barwaaqadaas uu noqday markii uu gaaro marka 2 jir wiil wuxuu noqday wanaagsan barbaaray ilmaha ka korin badan haddii maadaama waqtigii caanujintu ay dhammaatay waxay ku celisay hooyadii dhashay aaminay u geysay waxayna mar lamaad ka dalbatay inay ku soo celiso say u sii hayso maadaama ay ka aragtay barakaad iyo khayraad aad iyo aad u badan waxay jeclaysatay la jirkiisa aamina mar lamaaday soo siisa nabigu wuxuu ku noqday haddana mar lamaad fi ardi bani sacd dhulkii bani sacd uu mar dambe dib u laabtay ilaa marka uu gaaray da'da ilaa 4 sano uu gaaray markaasaa arrin dhacday arrintaasu markay dhacday xaliima xoogaa baqdina gashay marka baqdina gashay arrintu arrin waxay ahayd khaariqah ay ahayd arrin qof kasto oo ka cabsahayna waa ahayd sida muslim uu wariyo fi xadiithihi Anas ibn Malik saxaabiga la yiraahdo wuxuu leeyahay anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam ataahu jibriil rasuulka alle malakul jibriil uu yimiday wa huwa yal'abu ma'a al-ghilmani asoo wiil dhalinyaro la dheelaya malakul jibriil uu yimid fa akhadahu فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك أنس وحوليه ملك الجبريل النبي ويمدي قبتي أو جيفيي بارك يا حبتك كدن بلاي wadnaha banaanka uu soo bixiyay kidibna dhiig ka soo baxshay asu wuxuu ku yiri waa nasiibki shaydaanku uu ka soo gali lahay nasiibka shaydaanku ku soo gali lahay waay mugaasoo dhaqay qalbiga nabiga biyo zamzam uu ku dhaqay markaasuu ku celishay booskiis wajaa al-ghilman yas'aun ilmihi dhalinyarada waa soo kala ordeen iyagoo hooyadiis u naadihaya yaquuluuna inna muhammadan qad qutila muhammad waa la dilay iyagoo dhahayay bideen hooyadiisay u yimideen marka hooyadii waa cabsatay markaasay dib ugu celisay hooyadiisa aamina bint wahab wuxuu ku noqday marka nabigu Makka ku noqday markuu Makka ku noqday marka da'da 6 jirka uu maraayo hooyadiisa waxay ziyaaro u aaday nabiga aabihiis qabrigiisi oo ku yila Madiinatul Munawwara waxa hore uu sii raacay khaadimad la jiray Ayman Barakatul Habashiya iyo canugeeda yarka oo nabiga ah iyo abkow Abdul Muttalib masaafo ilaa 500 kilomitir ay gooyeen madiinay tageen muddabilay soo joogeen waa ka soo laabteen marka ay maray meelira abwaa oo ku taala bayna Makka wal Madiina Makka iyo Madiina iyagoo u dhaxayo safar wali socota ah markay abwa soo gaareen nabiga hooyadiisa waxa ku timid tii Allah iyadana waa dhimatay كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما عن أبويه mugaas nabigu wuxuu noqday mid ka agoona labadii waalid aab muxuu ku waayay asoo uurka ku jira hooyana asoo 6 sano jiro waayay nabiga waxa dib u laabatay Makka abkowgiis Abdul Muttalib abkowgiisa aad iyo aad u xallaaneeyay
ugu dadaalay naxariis u muujiyey ikraam gooni ikraami jiray mararka qaar waxaa dhici jirtay cabdulmudalib waxaa gogol u tiil kacbada hoosteeda wiilashiisa marka reer cabdilmudalib waxay ka fadhiyaan hareeraha ee nabigu uu soo dhaqaaqo gogosha abkowgiisna uu ku fadhiisto arrintaasoo marka u ah ikraam abkow uu ku karamayhaayo ilmaha kaleeto bannaankay fadhiyaan laakiin nabigu wuxuu soo galay firaashkii cabdulmudalib sidaasaa muddo ay ku noolaayeen markii uu gaar nabigu da'da 8 jirka famaata jadduhu cabdulmudalib cabdulmudalib asigana waa geeriyooda haddii markii cabdulmudalib uu geeriyooday 3 qofaa isdaba kacday waxaa la wareega marka xadaanadiisa nabiga adeerkiisa oo ah shaqiiqa abiihi abu aalib ibnu cabdilmudalib sayd cali aabihiis ku wareega xadaanadii ase nabigu waa karaameeyey waa barbaariyey aad iyo aad uu shafaqo iyo dhimrin badan ugu muujiyey